بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسر خيارة قيمها بدنا هودا نقل صعوتها إيميل كستات شوكتان هل كان هو تلفزيون قناة الصومال الاستوديو سمجال هرجيسا waxaan ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono dibuna soo gudbin doono kuna casuunay Maxamed Cabdulqaadir Axmed oo wiilkan dhalinyarta ee barnaamijkan igala qayb gali doona barnaamijka waxaan ku la faguri doonaa bal aqoonta iyo khibradda aan arrimaha aan ku casuunay barnaamijkan oo ah macluumaad fara badan oo uu leeyahay dunida iyo inta faraha badan laba Soomaaliland oo barnaamijkan aan markaas ugu soo gudbin doono barnaamijkaasi oo intooda ugu faraha badan ay ku saabsan tahay aqoon dhinaca warbaahinta oo marka warbaahinta wax gudbinayso uu xiriir la leeyahay ama magacyo madaxweynayaal ha ato ama dalal ha ato ama dhacdooyinka dhinaca ciyaaraha ama suugaanta intay doonto ha ato aqoonta uu leeyahay barnaamijkan aan ugu casuunay oo dad fara badan goordhow ay ogaan doonaan khibradda iyo aqoonta ku saabsan sida uu markaasi u qabtay bal caalamkan madaxweynayaal ha ato ama dadka inta faraha badan warbaahintu ay ka sheekayso oo macluumaadkooda oo dhan goordhow aan ku weydiin doono waxa sidoo kale isaguna martiigu Cabdiqaadir Axmed Maxamed oo ah Cabdiqaadir Axmed markaasi cabdi oo ah wiilka aabihi Maxamed aabihi oo isagana barnaamijkan marti noogu ah Cabdiqaadir waan isku soo noqon doonaa Cabdiqaadir Axmed cabdi kulanti wanaagsan ku soo dhawo barnaamijka walaal Cabdirasaaq aad baad mahadsantahay waxaan doonayaa Cabdiqaadir ku weydiiyo ugu horeyn Maxamed sidaan tilmaanay ama warbaahinta horeba ugu jirtay ha ahaato meel kale laga sii daayay had iyo jeer waxa uu xafidsan yahay magacayaasha madaxweynayaasha kala duwan ee caalamka ama siyaasiyiin ahaato goorma ay ku dhalatay inuu arintan xiftiyo ama sideed ku ogaatay inuu aqoon u leeyahay intaas in leeg horta Cabdisaaqo ku ogaaday isagoo fajira ayaa Maxamed wiilkayga waxaan nahay friendship oo saaxiib baan nahay habeenkii meel baan wada seexanaa aan doorkii oo kale wada seexanaa haleel badan oo aan is haleelnay ayaa dabcan waxaan wixii weydiiyay su'aalo badan wuxuu yiraahdaa kan waa maxay kan ii sheeg dan markaas aan ogaaday in wiilkayga maskaxdiisu ay soo jeedo dan su'aalaha maan dibsan markaas waxaan yara daawadaa telefishinada iyo anigoo siyaasiyo bariga hore siyaasadda ku jiray marka laakiin ka baxay waxaan eegay bulshadii reer Soomaaliland oo wada siyaasi noqoto habeenkii wixii telefishinka ka soo galayay ama saanta ama odaga isku haystaan oo leeyihiin ninkaas muxuu yahay halka dantii lagaga foofi lahaa marka tan waxay ka turjumaysaa bulshadii reer Soomaaliland ama bulshadii Soomaaliyeed in caruurtooda ay siyaasadii ku dhalanayso oo noqon karo beecada marka wuxuu awood u leeyahay in habeenkii ama markaan waxaan ogaada caruurtu time-ka qaybaan wax loo sheegi karo inay tahay early in the morning aroortii iyo habeenkii markuu seexanayo dan markasta wuxuu weydiiyaa waxaan waa maxay dan waan uga jawaaba marka habeenkii at least markuu su'aasha weydiiyo aniga lafteeda isku taageerada siyaasadda xagga dambe kaga jiraayo kadib markaas habeenkii ama madaxweynaha lafteeda mobilkan ku qortaa dan marka mobilka ku qorto ay magaciisa xiftiya dan isaga ayaan u sheegaa dan uu recording garaya marka aniga lafteeda waxaan islaaday bulshada reer Soomaaliland waa inaad ku soo kordhisaa wax ka duwan waxyaabahan kale sida bulshadeenu aad waxay u isticmaalaan haday noqonayso xagga fanka haday noqonayso heesaha gabayada ana waxaan isiri bal xaggan kale siyaasadii eeg mar hadii siyaasadii lagu dhaqmo oo imka aad moodooyin waxyaabihii dhan laga tago xagga siyaasaduna aan iskugu soo ururnay marka ana dhinacaasan ka istaago la absaar Cabdiqaadir markaad eegto daada Maxamed imse jir weeyaan markaas wiilkaygu wuxuu dhashay 2008 imka waqtigan xaadirka waa 6 sano ayuu jiraa laakiin daadis way ka muuqataa waan u maleeyaa si fiican inta marka doonaya wax weeyaan ilaa inagu weydiin doono goordhow madaxweynayaal ha ahaato ama wadamada kala duwan oo aan arag dad badan aan haynin magacyada daatan marka u sheegan aad u sheegaysay buu xiftiye miya oo waxaad leedahay wadan walba marka loo sheego dhakadu ka qabanaysa soo ku xiftiye Cabdisaaq walaal waa mahadsantahay maanta su'aashaas waa su'aal fiican ها طبعا marka imkaan u sheego 3 time markaan 3 jeer ama 4 time igu celiyo ayaa uu recording gareeyaa wuu xiftiyaa dan markaasaan ku weydiiyaa dan su'aashii ka jawaaba sida haday noqonayso sheeqooyinkeena hidaha iyo dhaqanka ahaa haday noqonayso wax kasto oo aan u sheego haday noqonayso anu xagga diinta kamaan tigino markaan imika weydiiyo diinta waayo uu sheegay nabiga waayo wax kasta uu sheegay dan waxyaabaha ugu yaabka badan daanu imika markaan yaraamaan qayb kareen marka imika isagu telefishinka wixii ka soo galay haday arfataas noqonayso haday all of them waxaysiya marka waxaan oran karaa
maskaxdan waa mid ilaahay siiyey oo naturally ilaahay mid uu dhaliyay baan oran karaa ma oran karo daan waan xiftiyi karaa waayo diido qofku aan xiftiyi lahaa yaraanteed wax badan xiftiyi lahaa ya wagaag aad baan kaga mahadcelinaa maxamed markaasi si toos bal aan daawadayaasha ugu soo gudbin doonaa qaabka uu xiftisan yahay iyo sida ay magacyada toos u weydiin doona maxamed baan u soo bandhigi doonaa barnaamijka intiisa kalena maxamed baan ku casuumi doonaa maxamed cabdiqaadir waayahay daawadayaal mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leenahay waxaan gudageli doonaa maxamed cabdiqaadir sidaan idiin sheegay ee qaybaha kala duwan ee markaasi aan hore usoo gudbinay maxamed bii tilmaamaya markaasi cabdiqaadir ee ahaa bal inay madaxweynayaasha ama caalamka aqoono fara badan iyo qaybo fara badan ka leeyahay maxamed baan hadda hortiina keeni doonaa waxaana weydiin doonaa maxamed markaasi qaybihii aan ugu talagalay maxamed imse jir baa tahay 6 jir wagaag waxaad ii sheegtaa maxamedow madaxweynaha Somaliland محمد سيدايو madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti اسماعيل مقيلي waxaad ii sheegtaa madaxweynaha Soomaaliya حسين محمود madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya عبد محمود عمر madaxweynaha dalka Kenya أهور كنياتا xildhibaanka dalka Kenya ay ka soo doortaan Kamukuji deegaankaas kuma leeyahay يوسف حسن Yusuf Hassan baa leeyahay waxaad ii sheegtaa madaxweynaha dalka Tanzania سني تكاي تكيتا madaxweynaha dalka Itoobiya Dictor توبيا تتو مراجع تسمي madaxweynaha dalka Zimbabwe مقابل madaxweynaha dalka Suudaan عمر بصير koonfurta Suudaan سفكير madaxweynaha Cuba كوبا هاو خاصرو Faransiiska هولان Brazil بيما هوسف Ukraine ورين بهرا براسينكو Malaysia ماليزيا نتيب هساك South Africa سأفريقيا سوما Turkiga تركيا حجب دايب الدقان Mareykanka ذلك باراك أوباما dawladda Ingiriiska إنجليز قدام في كاربون boqorada dalka Ingiriiska maxaa leeyahay كولي إليزابيث Queen Elizabeth dalka Congo madaxweynaheeda كونغو توسف قبيلة madaxweynaha dalka Liberia سليف توسن madaxweynaha dalka Nigeria ولا تونسن good luck Jonathan madaxweynaha Algeria التالي أدعسيس بتفريقة isaga aniga madaxweynaha dalka Japan سبان سيسو أب madaxweynaha dalka Korea كوريا كيم جون أون madaxweynaha dalka Japan سيسو أب Shiinaha هنا كيم بي Spain توكاوس Jarmalka سمك عقل ميكل dalka Palestine برازيل محمد عباس Maxamed Abbas Israel إسرائيل نتنياهو Saudi Arabia بقسمة بن عبد العزيز السعود Imaaraadka Carabta شيخ خليفة Khalifa Bangladesh بلاديس حسينة dalka Hindiya هدية ما بلدنا موري Afghanistan أفغانستان أسرف يعني Morocco موروكو بقول محمد Venezuela ولا نيكولاس جول Canada كندا ستيفن Ukraine يوكرين بهرا براسينكو Rwanda وانت وولكا كامي Kagame aad baa mahadsan tahay dhinaca ciyaarahan u gudbaya ciyaaraha xidiga ku guuleystay ciyaar wanaaga kubadda cagta waxa ku guuleystay Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo iyo ka guuleystay Lionel Messi xilka kubadda cagta maxaa la yiraahdaa FIFA yaa haystaa madaxweynaha San Blatter waxaad ii sheegtaa xaysiidaynu eegaynaa TV-da xaysiis badan baa ka baxa xaysiida TV-da ka baxa maxamedow bal ii dahab oo kale marka la xaysiinayo maxaa la yiraahdaa ii dahab mobile mustadaafin wala subcasiya wada mobile kala oo Soomaaliga ii dahab haye kuti حوالة موبكاga kasa kasa si ku furata xawaalada atirsa adiga meesuktina tacleeyo ka soo diraya waa faxatay kaga iyo qalaabo soo isticmaal idab
digo oo qayb xisaabta kaaro Flandaasin anigoo kan kaga soo isticmaalay idahab kusbo oo ka samtay anigoo idahab isticmaalaya wax ku fuusay sakata samtay isma mobilka samtay kuwiisoo gaariga idahab wadayada subankiyada tasintida kuleeyahay iyo ganacsiga kaas safafi oo idahab ku beela saa khaaska idahab digo kan lacagta سالم كمان تبكي لعبتي كان بسي أسفل أوعيسي أو كان سيدا أنا ودمان أدري ساسية وهلي أنا عصب إيدا استعمال إيدا مكسا يمكسا كل استعمال صمتين. waxaa kale sheegtaa shirkadaha kale waxaa kamid ah Telesom oo kale Telesom waxay hayse fara badan koon mi baa ka hayse maxay call he back adiga oo macmiil Telesom oo jacayl ama la saqado adeegyada Telesom maalaha kamid qof aad u baahna gaari ma ku dhaafay ma u dhawaaqay ma qaybsay kuma qulway jadka oo sabax mobilkaaga mikii qaraacay ma waad in lacagta ku haran kuurta oo yaaban ku dhawaaqay ku taxtida boolka Telesom ومكوري معمي ميانو أوجين أريجاسية call he back ولا الفريق قلت قفص أو بحنات كتب فحنك صاتي سنكن ممكن استعمالي أريجا call he back هلا قفي فريق تودي تتجنا أو كروسهالي كاريجينا أو صلاتي call me back فريق ودي قف وبعدين يقول سهل تبي كيس قف ودي توماتو كدينا فريق أسوأ كروسا Telesom إيريجا call he back وده سيدي عيب ناقص له واحد دولية دتك عنك رئيس ما نعمل الشيء وحكمي ذا تفر بدن وردي عنك إنجليز كم ياريجو على أساس ما لنا وكما كقول استترتك يا ردك مو فارح لا هي ساعة كينان if you feel then if you listen Jamie higher or the nation محمد موجي الليبان هسي سميت كمية دون برنامج كنا كشوق بجابينات كحسوسته قوي كلا نقود بدونا وصوصورة كودي وحنا واسدال عبدي صحولي حفران هذه أدوم ما سنتها هذا غادر هذه أدوم ما سنتها أي أدوم ما سنتها أي وحنا وانسدال عبدي وانصوصورة كودي وحنا وانسدال عبدي سمير يرويها سحر الله حفظه